madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka Puntland. xaflad ka dhacday hoolka baarlamaanka uu ku shiro ee magaalada Garowe oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin uu kamid yahay madaxweynihii hore General Maxamuud Muuse Xirsi iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo xubno kale iyo isme iyo nabadoono ayaa xilkaasi uu kula wareegay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland. warkaasi waxa magaalada Garowe ka soo diray wariyahayaga Maxamed Axmed Ilkaase. xaflad siyaarsara loo soo agaasimay oo maanta ka dhacday hoolka baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa lagu kala wareegay xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland. ugu horreyn waxa ay soo dhinac fadhiistay labada madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Muuse Xirsi General Cadde iyo madaxweynaha xilligan Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole iyo waliba madaxweynihii hore dowlad goboleedka Puntland Xasan Daahir Maxamuud iyo madaxweynaha cusub General Cabdisamed Cali Shire. waxaana maanta munaasabad siyaarsara loo soo agaasimay oo ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isugu jira hay'adaha caalamiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed xildhibaanada baarlamaanka Puntland waliba ismada iyo dad kale oo aad u tiro badan lagu kala wareegay xilka jagada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland. waxaa halkaasi ka hadlay ugu horeyn madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Muuse Xirsi General Cadde oo xusay in uu si weyn ugu faraxsan yahay inuu maanta xilka wareejiyo. waxaana uu madaxweyne Cadde Muuse uu sidoo kale xusay in uu xilkii ku wareejinayo madaxweynaha cusub Cabdiraxmaan Maxamed Faroole waxaana uu ku wareejiyay warqad dukumeenti oo ay ku qoran yihiin dawladda waxyaabaha xil wareejinta ah. hadaladii madaxweyne Cadde Muuse waxaa kamid ahaa madaxweyne federaalka Cabdullaahi Yuusuf martida sharafta leh waxaa khudbooyin iyo hadee way dhamaadeen waynu ka soo wada hadalnay. alxamdulillah maantay waxa weeye xil wareejintii annagu waxa yagi sidii aanu rabnay ayaanu ku soo dhamaysanay laakiin caadada waxay tahay in la sameeyo xafladan oo la kala wareegsado waxa la arko sidii aanu rabnay ayaanu ku dhamaysanay. saddex qodob kaliya ayaan oranayaa. saddexda qodob mid waxa weeye maantay ciidamadii Puntland oo dhan oo inta gobol joogtay waagii hore hadday beel iyo waxa u fadhiyeen ma jirayso. maantay wixii ka dambeeyay dowladdan ku wareejin dowladda waxaan ka codsanayaa inay tagaan fadhiyadii waxyaalaha qaarkood ma sheegayo madaxweynahan kala hadli doonaa in lagu dhaqmo qaladka ugu weynaa waxay ka ahayd ciidamada ayay ka ahayd in hadda la tago oo la tusoo itaabsi ciidan kooban laga soo saaro. wixii kaleeto oo hubiyo ama wixii kale aniga dowladda waa ka wada hadli doonaa. marka waxaana kula talinayaa dowladda oo awal aan bayaankayagu yahay inaan ciidan beeleed dame uusan jirin iyo teknika reer gaara leeyahay. waa inay noqotaa hal ciidan oo meel ka soo wada jeeda. taasu waa mid weyn oo waxa laga qabto la rabo. waxaana hubaa quality-gi waa leeyihiin doctorka iyo General Cabdi Cali Shire oo aad u yaqaana shaqadan ama ciidamada wax badan u joogay. annaga kolba naga kala daadatay waxaan rajaynayaa iyagu inay joojiyaan. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu mahadceliyay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamuud Muuse Xirsi General Cadde. waxaana uu xusay madaxweynaha cusub in uu madaxweynihii hore ee Puntland uu u noqonayo la taliyihiisa gaarka ee dhanka mashaariicda oo uu ka codsanayo inuu dalka la joogo maadaama uu mashaariic badan uu madaxweynuhu hore u soo dhameeyay. isugu nimid xafladan iyo munaasabadan xil wareejintii madaxweynihii hore dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Muuse Xirsi ku-xigeenka Cabdisamed Cali Shire. mahaddaas dadka aan u soo jeediyey waxa weeye mid ka shii laabta ka soo qoray oo ay mutaysteen dadweynaha Puntland oo dhan oo halkaan isugu yimid waxgaradkoodii iyo madaxdhaqameedyadoodii iyo siyaasiyiintoodii iyo ganacsatadoodii iyo dhalinyaradoodii iyo gobolkoodii intuba ay Garowe isugu yimaadeen siday uga noqdaan madashaas
marag sida wax u dhacayaan oo weyn xagga caalamka iyo xagga soomaalida kale intaba laga qaba in wax ka dhacayaan laakiin anigu aan hubay kalsoonida aan ku qabo iyo aqoonta aan dadkeena u leenahay iyo sida maamulkii hadda meesha aan ka bedelay oo Cabdi Muuse madaxda u ahaa ay uga dhameeyeen ballantooda ahayd in doorashadaas ay ku dhacayso si nabadgelyaha waqtigeedina ayan dhaafay xilkana ay ku wareejin doonaan ninkii la doorto iyo madaxdii la doorto sidii iyaguba uga wareegay mahaddaas waxaa iskale dadkooda gaar ahaan waxaa iskale maamulkii aan kala wareegnay xilka gaar ahaanna waxaa siinay madaxweynaha oo aan hadalkiisi ka dhameeyey waxaan idiin caddaynayaa maanta sida uu isaguba sheegay madaxweyne maxamuud xirsi muuse Cabdi Muuse loo yaqaan inuu noqon doono la taliyahayga xagga arrimihii iyo wixii uu soo waray oo dhan dhinac kasta waa ahayd oo mashaariic horumarineed ahayd oo anigu aan xog badan hadda ka hayn laakiin isagu xog ka hayo meel oo ku soo simay meeshii laga sii wadi lahaana aniguna wixii iyo maamulkaygu ay ka qaban doonaan wixii laga sii dhaqaajin karo isaguna uu gala ahaan doono la taliyaha iyo ilahay ogaan islaan ciise islaan maxamed oo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka gaar ahaan ismada ayaa isna waxa uu meesha ka xusay oo si gaar ah u amaanay xukuumaddii hore ee uu madaxda ka ah madaxweyne Cabdi Muuse iyo waliba meesha ay Puntland soo gaarsiisay intaa kadib haddii aan u gudbo xafladda gabagabadeeda waxay ila tahay maanta waa maalin taariikh leh waa maalin nin waliba og yahay waa maalin haddee inana aynu ku faraxsannahay iyo wixii ka wadamaynaya waxaan aad uga mahad celinayaa dawladdii hore ee maxamuud muuse xirsi uu madaxda ka ahaa sababtoo ay ku tahay ninbaa wuxuu yidhi alla yidhi haddii aan wax bi'iyeyna wargeel 30 qaday baan ceelkeena haddii aanan wax bi'inna geel 30 qaday baan ceelkeena haddii haatan la dhaliilayeyna meeshii la rabay bay wax keeneen haddii la ammaanayana meeshii la rabay bay wax keeneen oo xaggee tahay meesha maanta la joogo wey sidaa ayaan uga mahad celinayaa meeshii la rabay oo wax keenay kuna soo khatimay intaa haddaan tii hore uga gudbo dawladda cusub waxaan leeyahay soomaalidu waxay ku maamaadaa ceerinka rasowcaa waan ku ogaan hadda raggii la hore la aragayo meeshii la rabay wax keeneene bal ragga maanta la doortadow maanta maalinteeda xaaladdu say tahay baanu sugaynaa waxay tahay waxaanu idinka doonaynaa ilaa maalintii doorashadu bilaabatay ilaa maanta wixii ishiinnuna arkaysay degtiinnuna maqlaysay maantana khatinkeedii yahay wax ka dhigan waxaan idinka doonaynaa inaad nuguna maqnaataan niin noona maqnaataan haddii aan fasiro haddaydaan annaga wax naga qaban wax noo qaban maysaane waxqabadka annaga naga bilaaba inaad annaga wax naga qabataan hadduu xaq yahay iyo hadduu xisaab kale yahayba haddaydaan annaga na xukumin wax naga maqan noo soo xukumi maysaanin saanagiiba na xukumi weyde